salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdo ka dhacday magaalada Garowe taariikhdu markay ahayd 17 bishii 2018 ay guri magaalada kamida Garowe xaafadaha Garowe kamida ayaa waxa wada deganaa afar gabdhood oo reer Puntland ah gurigaas haday deganaayeenna gabdhihii waxa ka dhacay way dagaalameen waxba isku qabteen gabdhihii markay dagaalameenna waa dhacay saddex gabdhood ayaa dhaawacmay saddexdii gabdhood oo dhaawacmayna waxaan niri referta la siiyay waxa la geeyay isbitaalka in lagu daweeyo gabadh dhiyaartayna waa la soo xiray hadeerna way xiran tahay labadii gabdhood saddexdii gabdhood oo dhaawac ahaa laba kamid ah oo kala ah Anab Cabdi Dhicis iyo Sahra Ahmed Garaad ayaa markii ay dhaawacii la daweeyay iyadoo hawshooda loo fadhiyo waxay aadeen magaalada Laascaanood oo kamid ah gobolada Puntland ayna haystaan nimanka Soomaalidiidka waxoo ku haystaan lana og yahay yaamahan wixii ka dhacay iyo wixii ay ka sameeyeen iyo dhibaatooyinka ay dadka u geysanayeen iyagoo la og yahay kuwan gabdho dagaalamay weeye oo dhaxdooda ka dagaalan wada deganaa oo walaalo ah kuwii iyagoo ay laayeen oo ay xabadda la dhaceen oo dhaawacaaba jooga oo halkaan ku soo dhaweynay oo la kabay oo arma la geeyay oo sidaas loo xanaanay looga shaqadooda loogu hayaa xanaano kuwa halkaan joogana hadee kuwaasay la mid yihiin iyagoo ay soo laayeen oo xanaanaynay in marka gabdhihii haday tageen waalidkoodu tageen oo xagga aadeen waa la afduubay guryahoodii baa loogu tagay khasab baa sawir looga qaaday iyagoo hadlayo qaylinaya waxaana la yiri waxa lagu soo laayay Garowe waxa laayay deegaanka reer Garowe ah waxa laayay gudoomiyaha gobolka ayaa mu'aamaladu sameeyay waxa halkan ka cadeynayna arintaas inay tahay wax kama jiraan hadda waxa la nin daad qaado xubaa cuskay baa la yiri nimanka Soomaalidiidka ah oo Soomaali dhibaatada ku haya oo dadkooda dhibaatada ku haya in ay haddana dhibaatadii ay wadeen inay meel kasta ay kula galgalanayaan hal la ogaado arintaas waxaan u sheegaynaa in saxba ka jirin gabadhii kale oo dhaawac ahayd oo ahayd Faadimo Saleebaan Dubad iyaduna waxa way isbitaalka taala Fartuun Maxamed Jaamacna way xiran tahay hawshaasna dadkoodii oo ehelka u ahaaba ka wada hadlaaya labadii beelood waana beelaha reer Sool ah gaar ahaan guud ahaan waa reer Puntland waxaan leenahay marka waxa soo kale inay wax ka doonaan ama dacayad ka raadiyaan waa wax raqiis weeye waana u liidnimo arintaasna sidaas u dhacday